السلام عليكم soo dhawaada asxaabay waa tahay daawadayaal halka waxaan ku soo gudbin doonaa afar dhacdo cajiib ah 1 2 qoysku gurigooda ka xaday warqad raali gelin oo dhaafay 2 qalab jinka ka saaraya guryaha 3 gurigu Kristayo kiish dheeman ah ka helay oo uu si dhab yar ugu hodmay macnaha si dhab yar uga taajiray 4 xabad biskud oo ka badbaaday markii Titanic oo kumanaan kun oo doolar lagu kala iibsaday daawade afarta dhacdo ayaan barnaamijkeena ku qaad dhigi doonaa maanta nala sii joog oo nala daawo barnaamijka dhameystir soo daawata afarta dhacdo waa tahay daawadayaal waxaan ku horan doonaa xabad biskud ee ka badbaaday markii Titanic oo kumanaan kun oo doolar lagu kala iibsaday mid kamid ah dhacdooyinka ugu layaabka badnaa sanadadiina soo dhaafay ayaa ka dhacday suuq kamid ah kuwa alaabta waxyaabaha taariikhda ku sunto lagu kala iibsado ee dalka Ingiriiska halkaas oo sida wararku sheegayaan ganacsada Greek ahi kumanaan kun oo doolar lacag uu kaga iibsaday buskud 100 sanadood iyo ka hor la sameeyay suuqa Henry Aldridge Lounge ee magaalada London ayaa waxa ka dhacay xaflad lagu raadinayo waxyaabo kamid ah alaabtii laga soo badbaadiyay markabkii Titanic ee sanadkii 1912 ku qaraqmay badweynta Atlantiga inkastoo xaraashka lagu kala iibsaday alaabooyin kala duwan waxa ugu layaab badnaa xabad buskud ah oo uu sitay qof kamid ah dadkii laga soo badbaadiyay markabkii Titanic oo ganacsada u dhashay dalka Greek $3,000 Mareykanka kaga iibsaday xabadii buskud ahayd halkan xabee buskud ah ayaa sida la sheegay kamid ahayd buskud uu qof kamid ah rakaabkii Titanic ka sii iibsaday moofo ku taalay Southampton ka hor intaanu markab ka dhaqaaqeen waxaanu ninkaasi nasiib u helay inuu ka mid noqdo dadkii ka badbaaday shilkaas waxaanu dharkii iyo wixii uu haleelayay ee la badbaadshay uu ku xafiday gurigiisa kadibna waxa ka iibsaday dadka isku ururiya alaabooyinka taariikhiga ah ee marka dambe ka macaasha qiimaha loo maleynay inuu siistay ama qofkaasi ku iibsaday busudkan oo ahaa noocidii moofooyinka lagu duubi jiray ka hor intaanay warshaduhu soo bixin ayaan ka badnayn dhowr senti oo dollar hase yeeshee waxa uu ganacsadaan ku iibsaday $23,000 kasoo qiimahan caadiga ahayn ee la siistay xabadda busudka waxa dadku aad ula yaabay in ganacsadaha uu iibsaday uu yahay Greek sababtoo ah waxa dunida oo dhan maskaxda ku wada haysaa dhaqaale burburka iyo busaaradda ka jirta dalkiisa iyo sida uu lacagta ugu loo farayo waxa kale oo dadku aad uga yaabeen sida dhabta yar ee shirkaduhu uga macaashaan qalabyada taariikhiga ay lacagta aan macna lahayn ku iibsadaan kadibna malaayiinta dollar ay kaga macaashaan wax xaraashka lagu kala iibsaday $120 shay oo kamid ah waxyaabihii dadka laga badbaashay shilkii Titanic ay xidhnaayeen ama siteen iyo kuwii markii dambe laga helay dhacdadii koowaad halka ay noogu joogto dhacdada labadan ee bilowno qalab jinka ka saaraya guryaha shirkad laga leeyahay dalka Thailand ayaa shaacisay qalab cusub oo ku doodayay inuu jinka ka saarayo guryaha waxaana shirkadu qalabkeedan cusub ku soo bandhigtay caasimadda dalkaas ee Bangkok sanadadiina soo dhaafay shirkadda reer Thailand oo lagu magacaabo Bondi ayaa qalabkeedan cusub ee jinka ka saaraya guryaha si dhameystiran uga hadashay faahfaahin ka bixisay adeegyada uu qaban karo ee jinsaarka iyo la dagaalanka ruuxaanta sida ay shirkadu ku andacootay qalabkan cusub oo lagu magacaabo ama shirkadu ugu magac dartay Trickster ayaa sadkiisa isku dhan ee awoodda u leh inuu jinka iyo ruuxaamaha ka saari karo guryaha ayaa shirkadu qiimihiisa ku sheegtay $1,500 inkastoo shirkado tiro badan oo ka jira dunida ay soo bandhigeen qalabyo lagu sheegay inay jinka ka saari karaan guryaha awoodna u leeyihiin haddana lama sheegin cid ka iibsatay iyo wax suuqa ugu soo kordhay sida warbaahinta dalka Thailand intooda badani ku warameen qalabka shirkadani samayso aan laga gaar sameecadaha waaweyn ee codbaahiyaasha ayaan ilaa weli cid iibsatay oo cadeyn karta awoodooda aan lahayn shirkadda ayaa sheegtay inay wax ka bedel ku samaysay modelkeedii kan ka horeeyay oo jiilkeedan cusub noqonayo kii labaad laakiin ma jirto wax tafaasiil ah oo shirkadu fagaaraha soo dhigtay ama dadka wax iibsanaya si gaar ah ugu qancinayso oo cadaan ah inta badan wadamada ay ku nool yihiin dadka aan diinta aaminsanayn ayaa ka cawday jimin ruuxaamo dhibaato ku keena oo guryihii ka qabsaday waana sababta ay shirkado kala duwan u hungureeyay inay ka faa'iideystaan suuqaas malaawaalka ku dhisan ee xaqiiqdiisa lahayn shirkadda reer Thailand ayaa ku doodaysay inay qalabkeedan cusub ee Trickster 2.0 awood badan u leeyahay kuna shaqeynayo koronto u dhiganta 220 voltage taasoo jinka iyo ruuxaanta raadsanaysa kuna duqeynaysa madaafiic iyo baaruud aan dadku maqli karin laakiin ay ogaan karaan dhibaatada uu ka geystay iyo inta uu ka dilay noolayaasha aan aadamigu indhahoodu qaban karin dhacdadaas waa dhacdada labaad aynu gudagulna dhacdadeena saddexaad gurigu Kristayo ayuu ka helay kiish dheeman ah kadibna si dhab yar ayuu uga taajiray guurista iyo geedigu maaha wax xiiso badan oo leh qofka danta ku qasabtay inuu ka diga rogto deegaankii hore oo uu ku noolaa gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ka guurista xaafadda iyo guriga muddada ku noolayd waa mid dhibaato badan
oo aan dadka badankooda jeclayn. hase yeeshee inuu dhashay dalka Australia ayaa guri cusub oo dhawaan u guuray uu noqday mid noloshiisa wax ka bedelay. farxad iyo taajirnimo aanu malaysanna uu kala kulmay, sida warbaahinta dunida inteeda badan ku warantay sanadadiina soo dhaafay. ninkan oo magaciisa warbaahinta xuseen sababo la xiriira Edmonton uu helay awgeed ayaa sida wararku xuseen dhawaan u guuray guri cusub oo uu kireystay, kaasoo markii uu bilaabay nadiifiyo uu ka helay diamond tiro badan oo guriga dhexdiisa taala. farxadi waa naxdin ayay ku noqotay, waxaanu sida laga wariyay ku adkaatay inuu rumaysto kiishkan uu helay ee diamond-ta. waxaanu muddo ku murmeeyay in waxa indhihiisu arkeen ay run tahay iyo inuu riyoonayo. hase yeeshee markii uu cadaatay inuu diamond run oo saafi ah ka helay guriga, ayuu degdeg ula xidhiidhay ciidamada ammaanka ee deegaankaas ka howlgala. waxaanu tugay khabiiro ku xeel dheer kuwaasoo iyagu laftooda xaqiiqsaday diamond-ta ninkani ka helay guriga. booliska ayaa sidoo kale caddeeyay in diamond-tan tahay mid waqti hore oo 10 sannadood laga joogo lagaga tegay guriga, taasoo sida loo malaynayo ay ka tageen dadka ganacsada macdanta iyo dhagxaanta qaaliga ah oo loo malaynayo inay gurigaas teganaayeen kuna urursan jireen diamond-ta iyo macdanaha kale ay iibsadaan ka hor intaanay suuqa gelin, sida sharciga dalka Australia dhigayo. waxa ninka diamond-ta ka helay guriga uu kireystay u taala inuu baafiyo alaabta uu helay si loo ogaado qofkii asal ahaan u lahaa, haddii la waayana isaga loo sharciyeeyo. waxa kale oo haddii qofkii lahaa sheegto u taala cashuur badan in laga qaado ninkan helayna abaalmarin baad xafad ah u siiyo, taasoo noqonaysa 25% qiimaha guud ee macdanta uu helay u dhiganta. ninkan ayaa si kastoo ay xaaladdu noqotaba qarka u saaray inuu si fudud u hodmo oo lacag tiro badan oo dhibaato u helo, waana sababta ay booliskii warbaahinta uga gaabsadeen baahinta magaciisa. waxaanu geedigu uu guriga cusub ugu guuray noqonayaa kii ugu fiicnaa ee abad uu taariikhda kala kulmo. markii dambe waxa la ogaaday baafin badan kadib waa la waayay dadkii lahaa diamond-tan, kadibna ninkan ayaa si fudud loogu sharciyeeyay, kadibna si fudud ayaa uu hodmay. dhacdada afraad noqonaysana teena u dambaysa tuug qoys uu gurigooda ka xaday warqad raadgelina u dhaafay. nin tuug ah oo xaday guri ku yaala magaalada Ticis ee dalka Yemen ayaa warqad raadgelina u dhaafay qoyskii lahaa hoyga uu baadhay, taasoo uu ku cadaynay sababta ku kaliftay inuu gurigooda u soo dhaco kadibna hantidooda dhaco. waxaanu tuugan noqday ka loogu hadalaynta badnaa shabakadaha xiriirka bulshada ee internetka sanadadiina soo dhaafay. sida wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu ku warantay, tuugan ayaa xaday guri ku yaala xaafadda Zahra ee magaalada Ticis oo ku taala bartamaha dalka Yemen. ayaa xaday dhammaan alaabtii taale guriga oo talaagada, roog iyo maacuun kala duwan ka mid tahay. guriga uu tuugan xaday ayaa sida la sheegay cidla ahaa, qoyskii lahaana ay dagaal uga carareen toddobaad ka horna la faaruqiyay. waxaanu helay guriga oo aanay cidi joogin oo inta uu jabsaday waa alaabtii talay oo dhaw ka gurtay. hase yeeshee dhacdada la yaabka noqotay ayaa ahayd warqad raaligelin ah oo uu ninka baadhay guriga uu dhaafay qoysku uu hoygooda xaday. waxaanu warqadda ku cadeeyay sababta ku kaliftay inuu xatooyadan weyn kula kaco qoyskan, sida uu Tawfiiq Mushtaaq oo ka mid ah qaraabada qoyska tuugan gurigooda xaday wakaaladda wararka ee Anadolu u sheegay. tuuga xaday guriga ayaa warqad uu gacantiisa ku qoray dhaafay qoyska, taasoo uu ku dhajiyay albaabka talaagadu kaga tagay guriga. warqadan oo qof kasta oo guriga soo galaa si degdeg ah warkayo, sababtoo ah warqadda uu talaagada albaabkeeda ku dhajiyay waa shayga kaliya ee alaabtii guriga uu taalo dhan kaga tagay. warqadan ayuu ninka xaday guriga ugu qoray qoyska, waxaanu qoraal gaaban oo uu warqadda ku dhigay ku yidhi, wallaahi dimaan xadeen ee gaajo ayaa igu kaliftay, iga raali noqda, waa walaalkiin Cabdo Axmed. intaasi waxa ay qoraalka uu tuugan u dhaafay qoyska gurigooda sii baadhay. warbaahinta dalka Yemen iyo kuwa Carabta oo si weyn uga waranta ayaa badankooda ciwaan uga dhigay tuug edab badan oo xaday guri ku yaala magaalada Ticis, kaasoo qoysku gurigooda dhacay warqad raaligelin u dhaafay. daawade 4 dhacdo xiiso badan ayaan baahinay. 4taa dhacdo ee xiisaha badan tii ayaa kugu la yaab badnay adiga. fadlan fiidiyoga like saar, siina share garow. Assalaamu calaykum.